مسؤولين سرسرة حسبية طلبة هي كلمية أي بلشة ugu baaqay inay dhageysanin wararka been abuurka ay fidinayaan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta mucaaradku mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye waxay bulshada fareen inay sugaan fariinta komishanka ee ku aadan natiijada doorashada waxaan ognahay maanta inay codeyntii dhacday wadalaba cishaana laga joogo waxaan ognahay xisbi waliba inuu maanta garanayo wixii uu cod helay inuu maanta xisbi waliba uu ogyahay waxaynu garanaynaa guusha cid ay raacday waxayse aynu sugaynaa inuu si xalaala oo kama dambaysa uu ugu dhawaaqo komishanka doorashooyinka qaranku sida sharcigu dhigayo axsaabta waxaa la gudboon ama xeerka doorashada xeerka anshaxa doorashadu in ay sugaan go-aanka guddida doorashooyinka ee ku saabsan natiijada kama dambaysta hadda anigu waan ku darayaa guushu way soo baxaysaa go-aankii waxa uu ku xiran yahay komishanka doorashooyinka waxaan uga digaynaa inay dad badan oo ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga wadani in xaflado khiyaal oo been abuur ay dhigayaan waxa ka mid ah meelaha laga dhigay xalayto oo ahayd Arbaca bishuna ay 14 ahayd guriga gudoomiyaha xisbiga waxa ka mid ah maamuus hotel waxa ka mid ah Hargeysa meel ka mid ah Burco intaas oo waxa weeye waa wax dadweynaha lagu jahwareerinayo lagu wiiqayo oo ay ka soo horjeedaan anshaxa iyo xeerarka doorashooyinka farxad way dambaysaa cidii hesha waana la og yahay cid waliba guusheeda iyo guuldarrada cidii kalaba waxaanu aad ugu boorinaynaa taageerayaasha xisbiga kulmiye inay farxad ku fadhiyaan guryahooda oo aanay damaashaadin oo aanay qalbiga walaahow aanay lagu ridin dabeetana iyadoo la ixtiraamayo lagu dhagan yahay aan la sugayo sidii la isku ogaa xisbiga kulmiye wuxuu si buuxda u taageerayaa u ixtiraamaya sida uu sheegay afhayeenku go-aanka xisbiga komishanka doorashooyinka heshiisyadii la galay xeerarkii la dhigtay ayaanu si degan oo ixtiraam iyo sharaf leh aanu ku bogaadin ku joogaynaa maalinta ay komishanku doorashooyinka soo baxana waa la arki doonaa cidda faraxda iyo cidda naxda Idris Ismaaciil Cabdi Ariel TV Hargeysa